afayeenka beelaha daarood cabdikariin cali nuur maxamed oo shijarayd ku qabtay mid kamid ah dooxooyinka gobolka Sool ayaa ka hadlay siyaasadda ka alowsan maamulka Puntland dhanka kalena afayeenka ayaa dhaliilo soo jeediyay madaxweynaha tantalada haya Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale afayeenka ayaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole isagoo ugu baaqay inuu faraha uga baxo faragelinta ku hayo xukuumadda uu maamulo Saciid Cabdullaahi Dani waxaan hadalkiisa kamid ahaa afayeenka والسلام يا أمد الصوماليين ملك استيجوكتو برنامج كي مالين تلويتو برلمان كبلان أهرينتي كدعضي نكي لأورنشيري حلقي قبقي قباؤو السعودي أيان الهبر يونسي وحوي دعوض وحان كايري قيل يقل له دردار ولي دعوضنا وحان كايري علي هدو قبقي الدين وادو دعوض كان وانيقا يدنسك شاقيقا وحان رباينا على هذا مدحوينها بلان مدن سعيد عبد الله الدني كلمتنا وحان ورا نكلي عبد الرحمن فروله كلمتنا وحان ورا بالشده بدلان انت ذكر دمان نكلي يراهدو مدحوينها بدلان سعيد عبد الله الدني وحان لاهي horta waxaanu kuugu dhaaranaa inaad madaxweynihii Puntland tahay ودadkani ay mandatekiisii ku siiyeen oo xildhibaanadaas ay ku doorteen taa horta inaad niyeysid baa loo baahan yahay madaxweynihii ummadda tahay xasaanad baad leedahay ma rabo inaan baydankeeda dhaliishaada miidiyaha ku soo mariyo haday dhaliili jirto siyaalo kale oo mas'uuliyiinta ama loo toosiyo ama wax loogu sheegaa jira waxaan se rabaa inaan talo kugu filan hadii Ilaahay kugu anfacayaan ku siiyo waayo wixii aad hagaajisana waa wax noo hagaagay wixii aad xumaysana waa waxna ka wada xumaaday maamulka 98 baa la dhisay ummad fara badan baa ku midowday reer Soomaaliyeed ama beesha daarood majority leelkase awrtable majeerteen ursangeri عرب صالح دشيشه دلبهانته عبد كومبه خير نوع عصارستي نيتير بغرو لغدست cid la soo raafay oo kaalay maamulka khasab kaga qayb gal lagu yiri ma jirto cid kasta aragtideeda iyo wacyigii markaa joogay ayay waxay ula muuqatay maanta in maamul samaysto oo la midoobo inay ku haboon tahay waxgaradkii iyo cuqaashii iyo dhaqankii iyo siyaasiyiintii dalka isugu yimi garoowe shir baa lagu galay dawlad baa la dhisay baarlamaan iyo xukuumad leh waqtiyo dheer baa la soo maray hadba ciidan baa meesha joogtay cid lagu soo raafay in ay reeraha aan tirinayay inay maamulka khasab kaga qayb noqdaan ama lagu khasbay ma jirto xilalka iyo manfuucuna mar walba dadkii inta waxa wada samaystay wax ku filan ma ahayn cid uun baa wax waday cid baana wax ahayd nidaam iyo xeer daarood iyo qorshe uun baana mar walba wax lagu waday maanta chance baad haysataa waad cusub tahay nin dhalinyaro baa tahay siyaasaddu kuguma cusba anigu waxa ka qaldan waan garanaya waxa ka qaldan waxa weeye steerinka lagu haystaa gaari baad wadaa ninba steerinka kugu haysta Cabdiraxmaan Faroole la yiraahdo oo mar hore la soo doorto 5 sano soo dhameystay wixii fashilma iyo wixii ceebana adiga leh haduusan steerinka ku siidayna gaarigu wuu qalimaya Puntland iyo adiga iyo dadka inta mustaqbalkooda waa lumaya mas'uuliyadana adiga qaadanaya Cabdiraxmaan Faroole waxaad ku tiraahdaa gaariga steerinka ii siidaa adiga meesha madaxweyne ka Cabdiraxmaan madaxweyne ka baa wuxuu dhiiban in adeer gaariga steerinka ii sii daadhay hadii kale wuu ku wada haligmaya gaarigu markuu steerinka ku sii daayo waxaan filayaa baarlamaanka aad maanta is haysaan inaad isfahmasaan shacabka reer Puntland inaad isfahmasaan dawladda federaalkana inaad isfahmasaan taladana aad ku filan tahay adiga iyo inta kula leh dhibaatada taagani waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa nin raga oo aan taladiisa u madax banaanayn oo xor ahayn waxa ka fiican nacas taladiisa u madax banaan madaxweyne waxaan ku leeyahay taladaada u madax banaanow
khilaafkan jirana haddii uu yahay mid sharciyanana sharciga isku difaac cidina sharciga kama weynaa oo hadday hore wuxuu qaldameen si nidaam ah gobonimo iyo dulqaad iyo mas'uuliyad ku jirto wixii u sax oo u qaado canaantaada iyo dhaliishaada haddii ay tahay ka badbadin oo baarlamaanku uu gardarro kugu haystana dee gartu hal cad ka bidhaan dheere iyadana ummadda tus waa la qabanayaa oo qabiil ahaan iyo haddii eebbe idankeeda qaran ahaanba waynu isaga qabanaa wixii qaldane arrinta tanna waad cusub tahay jaanis fara badan baad haysataa mushkuladaha ugu waaweyn oo taagani waxa weeye ummadda Soomaaliyeed way burburtay ummadda adiga iyo dawladda federaalka mushkulad aan cidina garanayn iyo gooraad isqabateen baa idinka dhaxaysa waxaanu aragnaa isqabadka aad isqabateen inaan wax xalin ku jirin wax dhibaato ah oo idin dhex taalaan ay jirin ay rag gaar ah ka shaqeynayaan oo Cabdiraxmaan Faroole iyo Xasan Sheekh ay ka shaqeynayaan adigana waxyaalaha noocaas lagu toojar gareynayo shacabkaaguna maanta dawladda nabad iyo nolol buu boqolkiiba 99 taageersan yahay haddii aad adigu dawladda aad dagaal la gasho isfahmi maysaan si dhabaho tulnimo labaan kuula talinaya waayo dhaliishaada iyo ceebtaadu waxba tari mayso reer Puntland waxba tari mayso intii aad xilka hayso waad garanaysaa China ka digtay Addis Ababa ka digtay Ethiopia ka digtay Kenya ka digtay weli Muqdisho iyo dawladda federaalka ahayd ee dalka Soomaaliya aynu u dooranay wada shaqaynta lambar 1 ay idinka dhaxaysay miidiyahaas waxaad soo marisaan waanu saynaa gooraas qabateena ma aynaan ogeyn goor la idin dhex galayo khilaafkiina la xallin waayo la garan maayo waxaad isku qabateen la garan maayo waxaad isku qaban kartaan ma jirto haddaad wax isla diidaan xamar baad ka degaysaa wixii aynu xaq ugu leenahayna waad inoo ka soo qaadaysaa wixii sharciga oo xaq leeyahay ku leeyahayna waad ogolaanaysaa maxaa kale oo dhib jira waxaan ku leeyahay khilaafka kan in la daweeyo waxaan arkayay maalintii dhowto markaad hoolka ka soo baxday wardaleela ma hurdo gobolada warar loo kala diray dawladda la yiraahdo la taageero boosaasaa laga hadlay gaalkacyaa laga hadlay garowa laga hadlay intii in la eg oo ku eedaynaysa baa iyana qoladii kale ay adeegsatay oo hadlay dabadeedna waxay noqonaysaa inaynu miidiyaha ka yooyaatano hadhowtana foodo iyo ay noqoto isqa qabsi waxa la iyo waxdani kuma jiraan in hadba la yiraahdo qolo meelaha laga hadlo hadda odayaal gaalkacaya ka hadleen oo boosaasa ka hadleen oo garowa ka hadleen waxa la kuma jiro guurtinimo iyo maamul iyo administration in waxa kan loo dhameeyo ku baahan tahay intaasaan madaxweyne ku leeyahay ninka la yiraahdo Faroole baan u soo gudbayaa Cabdiraxmaan Maxamuud Faroolow inaade ilaa iyo 30 sano ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland way ka xishoonaysaa intaana anaaniyad iyo hanjabaad iyo kala gur iyo anaa iri iyo anaa garanaya iyo anaa ahbaad waday taladaada iyo hadalkaagana ciilqab iyo cuqdad baa waqti kasta ka muuqata ummadda Soomaaliyeedna waxa isla warbal odayga cuqdada iyo ciil reer Puntland odayga cuqdada iyo ciil ka baxo oo 30 sano laga xishoonay laakiin wixii wax ka baxaya deema wax ka dhamaanaya wixii maaha waxaynu ognahay xilligii aad xilka haysay horta deeni maanta waxa ka xunada ka xumeeyay bilasxaanaga waxaan ka baryayaa ninka islaamka ee la doortay inaad gaariga isteerinka u siiday soo faraha uga qaadid waxaan ku sheegayaa waxaad ogeyd xilligii aad xilka haysay lagu doortay adiga iyo shacabku sida aad talada aad u maamushay ee ama aad u maaraysay cid ay daah ka saaran tahay ma jirto anigu dadka reer Puntland waan aqaana mar ganacsi baan kaga dhex shaqeeyay mar mas'uuliyad iyo odaynimo kaga dhex shaqeeyay mar dareen walbaana waa ka dhex shaqeyn jiray ka koone cid aan aqoon ma jirto waa dad aad isu jecel oo aad iyo aad wanaagsan shantii sano aad xilka haysay waxaad ku tala gashay qoys iyo xaafad iyo gobol inaad isu naxsiisid buu hoodlo xabadu ka dhacaso oo gaalkacaya looga soo gurmado boosaasa looga soo gurmado qarna looga soo gurmado ceerigaaba looga soo gurmaday baad adigiyo madaxweynaha aad siinaayo ciidanka Soomaaliland taageeras oo shacabka garowe aad xabad la hortaagneedo aad looma gurma karo ummadda reer Puntland kaalama hadlin waa dad xishood badan waa dad sharaf leh waa dad samir leh
tukaraq markii dagaalku ka dhacayay ee kaarayaasha la qabsanayay ciidanka Soomaaliland inaad taakuleynayso isbeesada siinaysa baxanta lagu hayaa ciidankeena Puntland aad lahayd ka soo baxa dagaalku aad furayso walaal war jimcaalow jiida ka soo bax dad baynuna iswada garanaya okay waxa soo dhaka kaalay hoolka shalayto isa soo taagtay teetalka aad hoolka ku fadhiday mikrofoonka ku qabsanaysa dadka ugu hanjabisay muxuu ahaa aad haysi sanatar baa lagu doortay muqdisho lagu doortay waxa allaale waxaad ka haysaa ma jirto xamar baad ka soo carartay iyo meeshii lagu doortay Cabdullaahi Siciidan iyo dadkii halka kaliya xildhibaanada hawshoodii ku haysataa garashada noocaasi maxay tahay meelaan cid ku qabata lahayn meelaan saxishoonayn okay waad hadashay waxa tiri dad baan halka kan hadii xildhibaanaha waxa kan wado meel heblo laga soo dirayo magaaladan ka saaraya waxaan u fadhiisanayaa timirka yaa adigu tahay markaa timirka ka saarasid nimanka aad la hadlasid anigu dee waan garanayaa aad baan u fanay dadkuna way garanayaan reer jalafle iyo gaariyahan baasiman soo garameys keebaa garoowe degaan waa keebaa ku badan keebaa u ku soo horeeyay garoowese ma sandaqada leedahay dadku roob ka soo galayba miyaan ahayn caasimadii Puntland markaas sida tan adigu hadlasay reeraha garoowe degan la yaqaan oo Helubayda Axmed Ugaar baa kamida Maxamed Ugaar baa kamida reer Shirwac baa kamida ugaariyahan baa kamida Xasan Ugaas baa kamida reer Xirsi baa kamida Carab Saalax baa kamida midna maahid mataan sharaf la yareebantii baa digtaa kuwa aad leedahay bahalkaan idin fadhiisanaya meesha la yiraahdo timirkaan idin fadhiisanaya garoowe waana kaaga badan yihiin waana kaaga soo horeeyeen kamana saari kartid waxaan ku oran lahaa dhib baa ku haysa cudad baa ku haysa 80 jir baa tahay iskaga bax waxa kanaad ku jirtid garoowena ma aha sandaqad aad adigu leedo dadku roob ka soo galay waa caasimada hadii laga kaxeeyana ka duwanaan mayso sinu chief iyo fal iyo buuro wadal soo garan mayso waxa aad 10 sano ama dhowr iyo 10 sano aad taageerisay maamulka Soomaaliland horta juqraafiga ma taqaana waxa uu sheeganayaa waa garoowe iyo madaxtooyada Puntland bay sheeganayaan ceel doofaar ama ceel daahir meesha la yiraahdo bay sheeganayaan adigiyo madaxweynaha Puntland inta lugoyso baad waxaad rabtaa inaad ku soo hogaamiso Soomaaliland oo ay garoowe qabsato garoowena waxaad leedahay sidii Sambaloolsha una kaale hanolo ka baxo soo ogid maamulka Soomaaliland kuwa wata ee aanu habeen iyo maalin hor taaganahay juqaarafaan inay garoowe u sheeganayaan soo ogid ina Cali Koore Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo Faratoon iyo Baasha Maxamed Cadde inay doonayaan garoowe inay badaxle oo kala ay ka dhigaano hadii ay qadarkeed inay laba maamul yeelato sida hadii ay gaalkacyo galmudug iyo Puntland waxa aad ka shaqeynaysaa waa waxaas inta rag ku hortaagan yahay ee uu dhimanayo in garoowe ay noqoto laba maamul ay yeelato garoowe cid ka baxsana ma jirto dadka aad leedahay timir baan fadhiisana timirka Cali Shire ninkii loo jeedo Cali Shire baa beeray oo ku haystay kabaare mana aadan joogin nimanka aad leedahay timirka idin fadhiisanayaan waa niman garoowe kaagana badan kaagana baawaro waxaan aad wadi jooji baan ku leeyahay cid ku qabatana hal la helo waxa tiri intaad baarlamaankii istaagtay kismaayo maamul baanu ka soo dhisnaydo waa la aqoonsado anaga aqoonsano khudbadaha yagiina waa dhageysateen khudbadii kismaayo waanu dhageysanay waxaan ahay tii aadan bare ducaalo oo lahaa dawladda Soomaaliya oo ku caayib cid kale ka khudbadaysay khudbadu taas ayadu waanu dhageysanay adna aad u qoslisay mataasaad ku faanaysaa aadan bare ducaalo Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarihi iyo adiga ku caaya kismaayo ka khudbadaynaya adna waad qoslisay intaas ay ahayd waxa kismaayo ka soo baxay Axmed Madoobe sharcina uguma hiirin kartid qabiilinimana uguma hiirin kartid qabiilinimo hadaad ugu hiirinaysid waa nin ugaadeen shalay markaad xilka haysay waa adiga ugaadeen dhiibay xabashida u dhiibayay iyagoo silsiladaysan sharcina uguma hiirin sidoo sharciga kii sanatarka ku ahayd ba meel kaga waranto aadan garanayn
nooga dhexbax baanu ku leenahay maamulka yaga adeerowga cali waanu ku aabhinaynaa annagaa samaysanay shaqo naguma lihid hargeysa jeceshahay or hargeysa tag kii aanu ku dirsanay xamar baad waxba ka goyn weyday ummadda reer Buntland waxaan leeyahay maamulkan tacab badan baa ku baxay xilli final la jooga dadka kan waa dad isjecel waa dad wanaagsan maamulkeena wixii qaldan waxaanu u baahanahay si wada jira oo aqoon iyo aqli iyo guurtinimo ku jirto inaynu u dhameysano aan TV-yada hadba odayaalo la oragaalka ay ka hadla kuwana boosal ka hadla kuwana ay xildhibaanadii taageerin kuwana ay dani taageerin inaynu si guurtinimo iyo sidaynu wax wadana aynu wax wadano isku duubnideena madaxweynahana wixii ka qaldan in la diyaarbeedanka si tusaale iyo guurtinimo iyo tulnimo iyo wanaag iyo xurmad ku jirto loola hadlo oo loo toosiyo isaguna inuu qaato xildhibaanada tan madaxweynahana waxa uu leeyahay xildhibaanada tan ku haysta waa kuwii ku doortay dad aad isaf garan waaysan ma aha ama sharci ku wada hadla ama hadii beedankeeda xeerdaarood iyo gobonimo iyo guurtinimo ku wada hadlo hawshaasi hoose ha loo dhameeyo khilaafkaana hal damiyo aad iyo aad baan islaamayo billaah